masiibadan ayaa waxay ka dhacday mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso iyadoona hal meel ay ku geeriyoodeen qoys ka koobnaa nin xaaskiis walaalkii iyo waliba ilmo ay dhaleen kadib markii gurigii ay deganaayeen oo ka koobnaa cooshad uu qabsaday dab iyaguna dadka deriska ay sheegeen in saaka ay soo kaceen gurigii oo qiiqaya isla markaasna ay arkeen dadkii geeriyooday ciidamada ammaanka oo gaaray halkaasi ayaa baaritaano ku aadan sida uu falkaasi u dhacay ka wada halkaasi taliyaha ciidamada booliiska qaybta gobolka Bariga Shaanle Sare Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo la hadlay warfidiyeenada ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxaanu aad iyo aad uga tacsiyeenaynaa masiibadii ka dhacday saakay meel guri nooca buushashka la yiraahdaa oo ku yaala xeebta dhinaceeda oo ay ku noolaayeen afarta qofna oo isku reer ahaa ay afartiiba ku dhinteen waxaan uga tacsiyeenaynaa qaraabadii iyo eheliyadii iyo ummadii deriska la ahayd iyo ummadda reer Puntland iyo maamulka dhammaan waa uga tacsiyeenaynaa waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo markaanu warbixin kooban ka siin horta arintaas baaritaan mug leh baan ka sameeyay boolisku CID-da hay'adaha nabad sugidda booliska caadiga dhammaan iyadoo hadda dhaqaatiirtii warbixin hordhacayna soo siiyeen iyagana aanu la kaashanay waxay arintaas ku dhacday waa dhimashadaasi waxa sababay dabkaas waa dhacay gurigu waa u xiraa waa jiifeen waa neef qabatoobeen markay neef qabatoobeen sidaas ay ku dhinteen dab ka bacdina dabkii baa soo gaaray xubin ka qaadatay male sida aan warbixinta ku hayno qof meelshiisi ka dhaqaaqay lama arko sida daraadeed marka ummadii reer Puntland iyo dadka waa uga tacsiinina wixii ku soo kordha oo baaritaankaasi noo soo saaro iyo dhaqaatiirta hadda inta naga maqan wixii ay nagu soo kordhiyaan dib baan uga sheegaynaa dadweynaha iyo reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii aad iyo aad uga tacsiyeenayna xilligan ayaa waxa magaalada Boosaaso ka dhacay dabayl xoog badan taasoo khasaaro badan u geysata dadka danyarta ee degan guryaha ka kooban cooshada taasoo sababta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac Ibraahim Maxamuud Yuusuf telefishinka dawladda Puntland Boosaaso.